taariikhda waa markii ugu horeysay oo dhacdo noocan oo kale ay ka tabinayaan warbaahinta magaalada Baydhabo. waa fagaaraha toogashada arituurka oo lagu fulinayo qisaasta Maxamed Xasan Maxamed Goomey oo hore u dilay una duugay marxuumad ganacsato dharka ku iibin jirtay bacadlaha magaalada Baydhabo laguna magacaabi jiray Aamino Maxamed Malaaq. tan iyo jimcihii la soo dhaafay ciidanka amniga ayaa waxaa baadi goobayeen marxuumadda waxaana god suuliya laga helay ugu dambeyntii maalinta Axadda ahayd. maxkamadda gobolka Baay ayaana ku heshay Maxamed Xasan Maxamed Goomey ku lug lahaanshaha dembiga sida heer ilaalinta maxkamadda ay ku dhawaaqayaan. maxkamadda waxaa u caddaatay dembiga lagu soo eedeeyay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed. maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed in Ruqayo Isaaq Cabdiraxmaan 35 jir ah ku dhashay degan Baydhabo. waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq. fagaaraha arituurka oo lagu fulinayay qisaasta Maxamed Xasan Maxamed Goomey waxaa soo buux dhaafiyay dadyow aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo kuwaas oo qisaasta maanta lagu fulinayay Maxamed u arkayay mid loo maray cadaaladda. Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ay dardar gelin doonto sidii bulshada reer Koonfur Galbeed ay u heli lahaayeen cadaalad. wali in mahadnagaane awlu madaxweynaha oo markaas biyay ari mayla raayay landambiile ee hata ka baad ay la fiirsanay markaas madaxweynaha bi in mahadnagaan si uu Ilaahay cadaalad waafaji waan u diyaarinka ay wali in mahadnagaan laamaha amniga sida CID booliiska mayla raayay asluubta heer ilaalinta qareenada garsoorayaasha dhammaantiyo mal in shal herna kiiskan mahad bilaaringa injeediyaan insha Allah wali oslaana inni wal kasto Ilaahay raalan kaayna sida mayla raayay garban isku kanagana ummutan saasaka dagaasi. garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa diyaar u ah ka falcelinta sharci dambiyeedyada qariibka ku ah bulshada. Siraajisha Isaaq warbaahinta qaranka Baydhabo.